xaflad lagu xisayay sanad guuradii labaad ee aasaaska Buma Academy ayaa lagu qabtay Hotel Safari ee magaalada Hargeysa. xafladda sanad guurada labaad ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha waaxda ciyaaraha, xogayaha xiriirka kubadda cagta Somaliland, qaybaha kala duwan ee ciyaartoyda akademigan, waalidiin iyo marti sharaf kale oo lagu marti qaaday. ugu horeyn macalinka Buma Academy Cabdinaasir Yuusuf Cabdi ayaa ku dheeraaday ka hadalka aasaaska akademigan, isagoo xusay in maalintii la aasaasay ilaa maanta oo 2 sano jirsatay wax badan uu ka qabtay Buma Academy, sidoo kalena jiilalka uu soo saaray ay isugu jiraan da'da 10 sano ilaa 13 sano, sidoo kale 16 sano ilaa 18 sano. dhinaca kale hadaladii laga jeediyay munaasabadan ayaa u dhacday sida tan. Carruurtu markay da'da yar tahay energy ku jira uu ka badan yahay dadka waaweyn ku jira. wuxuu u baahan yahay energy-ga inuu gubo, uma baahna in guriga ilmuhu lagu hayo oo la yiraahdo waxa weeyaan fadhi halkan dhaqaaqin deetana qolku galabaad ka daba gasho. Takoobaad ee cunto siya hamsi hay yiraahdaan ama hamsi hay yiraahdaan in ay carruurta yiraahdaan wax cun waa la yaqaanaa. arrinta labaad loo wax iska celi. labada arrimood baa lagu ogaa waalidka, laakiin maanta haddii la helay waalid la carruurtii meel ay ku ciyaaraan ha helaan. imkaaniyaadka imika ku haysataan anigu ma naan haysan. nasiib baad leediin, dawlad ahaan nasiib baad ku leediin, waalid ahaan nasiib baad ku leediin. marka waxaan isku dardaarayaa kaliya oo walba ducana ku jirto sida arday mas'uuliyiintu baa hore u sheegeen, akhlaaqda waa number 1. مثلا سكول قطعت وانك جلسوا وما قاق لهاي حبك بتشنا وحاجة وحويان علمه أو جورجي شوجا أو كله شوجا أو قلك كله فرديا أيان كله بتشوجن بكام مكان بهالكاسو استعماله يا يوكو فورا رايوكو مغني هاي وحن هو إذن لا يهون ذكر داريا بهالكاس استعمال كي سفرها بدن له دب بدن نو إذنكو هيا عقليا نو بدن بإدنياليا واحد إذن كفي عن أكاديمية إذنكو دليرت كلا أما سكول هيدا لا دقت أما أصحابتي أنا ugu yeedho idhaa balkaaleyna la tijaabiyo labada cisho ee aanu wax soo ciyaarno annaguna halkan aan wax ku haynaa balkaaleyna la eega. kubaddana waxay ka duwan tahay dhammaan waxa mushkiladaha qofka bini'aadmiga korniinkiisa, dhibaato kasto qaad ku leeyahay, dhibaato kasto ay leedahay dhalinyarnimo marka la maro ay leedahay faa'iido weyn bay ka tahay. qaadku waa mushkilad weyn oo bulshadeena saameyn ku yeeshay, waa mushkilad weyn oo qoysas badan oo qarankeena ka mid ay ku dumeen, waa mushkilad weyn oo geesiyaal fara badan oo dhalinyaro ah ay ku waayeen mustaqbalkoodii. taa waxaa ka sii daran maanta aad arkaysaan dhalinyaro intan wada laaleeg oo suuqa xaba ku wada abaysa. waayo qofka garoon lagu hayaa inta badan macallinku way u fududahay inuu dhalinyarada ku waaniyo salaada in la tukado, in la barto akhlaaqiyadka wanaagsan iyo dhaqanka suuban. waayo inta badan inaanu macallinka ka qaadan baa laga yaabaa, laakiin marka kubad loogu yeedho maskaxdiisa oo furan taana loo dhexgeliyo waxaa laga yaabaa inuu qofkaasi wax qaato. waxaan halkan mahad ballaadhan aan la soo koobi karin uga mahadnaqayaa macalinkayga Cabdinaasir Yuusuf Cabdi oo caawiyo hor fadhiya, oo ay farxad gaar ah tahay sida uu soo garab qabtay aniga oo aan wax xirfado u lahayn kubadda, sida uu soo dhiirigeliyay isna ku mahad celinayaa, isna Ilaahay garab qabta leh. waana muhiim akhlaaqdu sida wada ognahay qof aan akhlaaq lahayn in asfahantan way adag tahay. sidaas awgeed macallinku wuxuu isku dayaa ciyaaryahanada akademiga dhigta si uu u dhiso akhlaaqdiisa iyo ixtiraamka oo mar walba uu ka mudan yahay macallin ahaan iyo waalidkiisa iyo macallimiintiisa kale meel walba. ciyaaryahanada akademiyada dhigta waxaa ka reeban oo ka mamnuuca inay la yimaadaan akhlaaq darro sida cayda, dagaalka iyo rabshada iyo wixii la mid ah. waxaan leeyahay sida quruxda badaneed dushiina iyo akhlaaqdiina way qurux badan yihiin, kubaddiinuna ha qurux badnaato. hal mid baan idigu dardaarayo, kubaddu maaha kaliya inaad ciyaartaan, laakiin waa inaad wax badan ay idiga mashquulsan oo ay ka mid yihiin balwadihii laga hadlay, waxyaabaha aafooyinka inagu soo kordhaya ee mas'uuliyiinta nala fadhida ay halkan ka sheegeen wax badan. waad laba tirsateen. anigu ku hadlaya afka waalidiinta waxaan la dardaarmayaa dhalinyarada ubaxa halkan fadhida oo 2 qaybood ah, niman dhalinyaro gaadhay iyo niman wali carruur ah. wixii ka hooseeya 15 jir wali waa carruur, wixii ka sareeya 15 jirna waa niman dhalinyaro ah, waa niman xilqaad ah, waa niman maxay hayday gaadhay
who am I odhanaya kumaan ahay maxaan doonayaa maxay iga maqan aabba keen hooyo keen hooyooyinka iyo aabooyinku waa waxay soo gaarsiiyeen halka aad taagan tihiin. xafladda sanad guurada labaad ee Buma Academy ayaa madasha lagu soo bandhigay riwaayad kooban oo wacyigelin dhibaatada qaadka uu ku hayo jiilka da'yarka iyo sidii looga badbaadin lahaa balwadaha loona geyn lahaa goobaha ciyaaraha ayaa lagu soo bandhigay madasha. Markii ay soo dhamaatay xafladda iyo weliba hadal jeedintu ayaa waxaa halkaasi lagu bixiyay abaalmarino kala duwan oo Buma Academy dhexdeeda ah iyadoo sidoo kale shahaado sharafyo lagu maamusay dad uu la soo shaqeeyay akademiga Buma Academy. Matay qaran wararka malcab magaalada Hargeysa.